السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوا صاحبيال ومركلي مقال عصوب مقال كنا ما تحن قال دونا ما نشرح دونا سيدات الليت موشن وجديد كرين لهيد مقال نوعني عم بمدوجا ينوع عسكرو مقال هذا أو أنت بدن كعان عم بتيك توك لقصة ما هي مقال ده سيدات هذا استعمال أبليكيشن كالليت موشن نقصة ما لهيد أي مقال كنا كهال دونا سو كلو حنا مقال كنا ما تكهال دونا الليت موشن متك بلاي ستور كوجرا wuxuu leeyahay watermark amba wuxuu kugu soo dhajin doona calaamada ama loogada allate motion hadaba saad uga jeer lahayd loogada amba saad ula soo degi lahayd allate motion bila looga aynu muuqaalkeena maanta ka hadal doona hadaba ugu horeyn aynu guda galno muuqaalka marka ugu horeysa hadaba waa kan sad aragtaan buu inoogu jiraa hadaba ugu horeyn waxaan ka hadli doonaa sida ula soo degi lahayd isagoo bila watermark amba wax calaamadan wadan ugu horeyn waxa soo furan doontaa Play Store-ka yani ka loogada leeyahay ku jira isagoo bila looga waxa soo furan doontaa Google Chrome-kaaga amba browser-kaaga ayaa soo furan doontaa kadib qaybtan searching-ka aad ku qori doontaa Allate Motion Mode APK qoraalka halkaas kaaga muuqda aad ku dhufan doontaa kadib go ama search oran doonta wuxuu ku soo saari doonaa linki aad iyo aad u fara badan midka ugu sareeya ku qoran tahay qoraalka noocaasi Allate Motion kaayad ku dhufan doonta midkan hadaba waa midka saxda halkan aad keli kartaa isagoo 100% mooda oo bila looga aan wax haysiinana lahayn halka waxyaabo badan ay ku soo weydiin doonaa meesha download APK aad ku dhufan doonta download APK aad ku dhufan doonta halka wax sugi doonta ilaa shantaas tirada ku socota kadib meeshan ay ku tus doonaa intan waa versionadii kala duwanaa oo soo maray meesha versionka imka ugu dambeeyay wuxuu marayaa 4.24 la test weeyaan midka ayaad dollar oran doontaa sidaas inuu kugu degi doonaa sidaas ayaad ku heli doontaa isagoo bila looga baan wadan wax watermark hadaba si aad ugu sameyn kartaa muuqaal black ka ama noocaan muuqaalkan aad saan oo kala marka ugu horeysa waxa soo furan doonta application-ka Allate Motion ku sida kugu soo degay isagoo bila watermark ama waxaan calaamadan wadan Allate Motion-kaaga ayaa soo furan doonta marka ugu horeysa hadaba evaluating video codec performance intan waxay qaadanaysaa waa in hal minute ka yar waana sida yani uu kugu shaqeeyo bilowga marka ugu horeysa application-ka soo degtid waxyaabaha ay ku weydiin doonaa isla daqiiqadana hore daqiiqad badan ay kugu dhamaan doontaa aad bayna waxyaabo muhiim u tahay oo aad iska sugaysaa maadaama waqtigu yar yahay muhiimna uu yahay waxaan wada ka maarmeyn hadaba marka ugu horeysa oo sida kugu soo dhamaado wax ku dhufan doontaa meesha ay get started ku qoran tahay meeshan si rasmi ah ku nagu soo furmi doonaa waxyaabahan next aad ka soo oran doontaa next aad ku soo dhufan doontaa hadaba midkan mode-ka amba midkan imika loo soo degnay ka Play Store ku jiro wuxuu ka duwan yahay meesha sare AK modes ee ku qoran oo application mode hadda waxa ugu horeyn ku dhufan doontaa meesha plus-ka saynu sameeyna muuqaalkeenu rabnay hadda halkan waxa ka dooran kartaa muuqaalkaagu siduu yahay imka ku TikTok aynu sameeynaa kaaya ka dooran doontaa adigu markaad project-kaaga muuqaalka noocu yahay halkan resolution-ka isagana waxa ka dooran doontaa quality-ga nooca aad ka dhiganaysid aad markaad meelaan wada dooratid create project meesha ku qoranta ku dhufan doontaa project create ayaan doontaa kadib meesha plus ay soo oran doontaa waxa ka tagi doontaa meesha ku qoran tahay media allow access ay oran doontaa maadaama imka dood ku cusub tahay media allow ay soo oran doontaa imka saartaan oo la yino yahay oo leed ku dhufan doontaa saynu ga doorano muuqaalkan rabno noocu yahay oo markaad ku dhufatid sidaas aad ka stigi doontaa kadib muuqaalkaagu halku ku jira hadii uu dollar ku jira hadii uu Facebook aad meesha ku jira dooran doontaa sidaasina waad ku soo qaadan doontaa muuqaalka rabtid inaad hagaajid su'aalaanka muuqaalkan inagu baanay plus meesha ku qoranta ku dhufan doontaa markaas aad soo qaadatid oo ku soo saarmi doona saragtan marka video-gan uu noo soo saarmay ugu horeyn codkeenu isku xidhi doonaa waa heesi waxba marka inagu waxba codkooga ma baahnin adigu marka codka haduu ku furnaado waa caadi balse imkan waan iska xidhi doonaa codka markaynu saas ka soo xidhno talaabada koobaad ee sameyn doontaa meesha plus ku qoran tahay ku dhufan doontaa kadib shaybabkan badan uu siinayo ay shaybka ka dooran doontaa rectangle-ka shaybka marka dooratid sidan ayaad soo weyneyn doontaa
oo waxaad leegeysiin doontaa dhammaan muuqaalka markaad sidaa shaybka usoo leekaysid meesha color and fill ay ku qoran tahay ku dhufan doontaa waxaa ka dooran doontaa kalaradan midka kalarka midabka leh ayaad ka dooran doontaa kadib markaa kalarkan san usoo noqotid calaamadda aad ka soo noqon doontaa kamana soo wada baxmi doontid markaad saa uga soo noqotid waxaad tegi doontaa meesha ku qoran tahay blending and opacity meesha hoos ay usoo wadi doontaa difference meesha ku qoran tahay ku dhufan doontaa kadib subtract meesha ku qoran tahay kusoo dhufan doontaa saa aragtaan marka muuqaalkii wuxuu noqday casaan oo casaanka yar ayuu yeeshay haddaba iska soo baxmi doontaa waxaan ku dari doonaa effects kale meesha ay ku qoran tahay effects ay ku dhufan doontaa kadib add effect ay ku soo dhufan doontaa saddex effect ayaan soo qaadan doonaa marka waxaad u soo qaadan doontaa saddexda effect sidee u kala horeeyaan ka horeysa waxa la dhahaa copy background copy ayaad qori doontaa sidaas si rasmi ah kugu soo baxmi doona copy markaad qaybta search-ka ku qortid waa midka ugu horeeya oo copy background ay ku qoran si toosan oo noogu soo saari doona copy background imka waa ka midkii koobaad standard settings ay ku dhufan doontaa imka saad aragtaan kii koobaad aynu soo qaadanay haddana mid labaad ay ku dhufan doontaa effectskii aad ku noqon doontaa add effect ay odhan doontaa ka labaadna waxaa la dhahaa buller guys and buller baa la dhahaa keliya taadi waxaad qori doontaa buller amba meelahan kaa soo siinaya buller meelahan hore ayaad ku dhufan doontaa buller markuu san kuu soo siiyo waa midka guys and buller ku qoran tahay isagana waad soo qaadan doontaa standard ayaad kusii dhufan doontaa ka saddexaad waxaa la dhahaa effectiga saddexaad isagana waxaa la dhahdaa exposure iyo gamma ayaa la dhahaa egas keliya taadi aad qortid oo e iyo egas labada xaraf oo keliya taad qortid si rasmi ah isagana kugu soo saarmi doonaa markaynu egas qorno exposure gamma waa midka u sareeya standard ayaad ku dhufan doontaa sad aragtaan marka videogeeni midow ayuu noqday oo qofkii diriq ayaa lagu arkaya haddaba si aynu hagaajino effectska ay ku noqon doontaa effectkii ugu dambeeyay exposure gamma amba kii u dambeeyay soo qaadana ku soo dhufan doontaa markaad haddaba exposure ka u sareeyo joogtid waynu yar gaabin doonaa si wajiga si fiican loogu arko aduu wajigooda wadi doontaa meelaha 50 aad ka dhigi doontaa sad aragtaan marka videogii si yaro fiican ayaa loo arkaya sida hadda iska diisitay xitaa waa caadi balse muuqaalkeena iyo kale hadda sameynaysid waad nala socon kartaa gamma meesha qoranta ku dhufan doontaa iyadana xoogaar ayaad ka dhimi doontaa ilaa 970 mid ku diisan kartaa offset oo meesha u dambaysa ayadna -1 kaliya tayada ka dhigi doontaa imka saa aragtaan videogii markii hore madow ayuu wada ahaa imka qayb ka mid ah aynu videogii diyaarinay oo wuxuu noqday saa aragtaanba sidaa sad aragtaan saa waad ku diisan kartaa balse waxaad kusii dhufan doontaa effects bullerka ayaad iyagana guys and bullerka ayaad xoogaa isagana wax yar ku dalici doontaa ood meelaha 270 ka dhigi doontaa sad aragtaan imika video qurux badan aynu samaynay oo ka videogan rabnay marka hore sidan ayuu ahaa imkana sidaa ayuu noqday oo bullerka yara quruxda badnaa sidaas aynu saarnay haddaba si aad videoga oo dhan u leekaysid waad jiidi kartaa soo kale waxaa ka fudud inaad san soo tiraahid aad videoga halka u dambaysa geysid kadib calaamadda ku dhufatid saaragtaan imka videoga gebigiisa sidaas ayaan ku saarnay bullerkii oo wuxuu noqday video aad iyo aad qurux badan marka taa soo dhameysatid waxaad ku dhufan doontaa calaamadda ay kor u jeeda calaamadda exportka ay kor u jeeda kadib export ay oran doontaa sidaana uu kugu dhamayn doonaa uu kugu dhacmi doonaa wax kuguna safe ay oran doontaa sidaana uu kugu galmi doonaa galeriga muuqaalka inaad aad uga faa'iideysanayaan filaya intaas ku soo goyn doona muuqaalkeenan fadlan dadka boqorada subscribe saar videogan like saar aad iyo aad u wanaagsan